waa 7 jir dunidu u aqoonsatay duuliyaha ugu da'da yar la adduunka qaatayna darajada afraad ee kabtanka bayloodnimo. inta aanan u gelin muuqaalka fadlan nagu soo biir like saar oo shirkale muuqaalka. waxay dad badan aaminsan yihiin in maskax badnaanta iyo daminnimadu ay tahay wax dabiici ah oo la kala dhaxlo laguna dhasho, balse waa fikrad qaldan oo 50% been ah. xaqiiqada ayaa ah in qofka bini'aadamka ah aanu si dhammaystiran ugu dhalan maskax badnaanta ee uu 90% kasbado oo shaqaysto. tusaale ahaan, haddii ilmo yar oo maskax badan la ciyaarsiin waayo, wax la bari waayo oo laga farxin waayo, ama deegaan aan dhaqan fiicnayn lagu kariyo, waxa imanaysa in ilmaha yar ay maskaxdiisu dib u socoto ilaa uu damiin ka noqdo. aan u galo sheekada wiilkan yar waa Graham Shima, waa 7 jir u dhashay dalka Uganda oo ay dunidu u aqoonsatay duuliyaha ugu da'da yar leh. waa wiil leh hal abuur iyo maskax sarreysa. waxaanu keligii 3 jeer oo xiriir ah hawada ula kacay nooca diyaaradaha yaryar ee loo yaqaano Cessna 172. sanadkiina dhaafay 2020 waxa uu ku guuleystay oo la siiyay darajada kabtanimada. tani ayaa tusaale u ah dhalinyaro badan oo ahaan ka weyn Graham, waana sheeko ugub ah. waxa uu ku hameeyaa inuu noqdo duuliye caalami ah iyo cirbixiyeen ka dega Mars. sheekadiisa ayaa ka soo bilaamatay isaga oo jira 3 sano kadib markii diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin booliska dalka Uganda oo joog hoose ku socotay ay ku soo dhacday guriga wiilkan awowgii. waana halka uu dareenka iyo xiisaha bayloodnimo uga bilaamayso wiilkan. caadiyan shaqada bayloodnimo waa mid aad u adag oo xataa barashadeedu leedahay shuruudo adag. waana shaqo aanay qaban karin dad badan, oo xulashada shaqaalaha ayaa ah meesha ugu khatarta badan. waxaana jirta in qofka lagu xusho dhererkiisa, caafimaadka indhihiisa iyo guud ahaan jirkiisa. waxaana la ogol yahay ragga in aanu ka gaaban dherer ahaan 1.70 m. waana shaqo inta badan nasiib ah, balse Graham Shima ayaa rajo fiican ka qaba inuu noqdo duuliye caalami ah oo u kala goosho dunida. ugu dambayn, mucda sheekada ayaa ah in waalidku yahay warshada kaliya ee soo saarta wax bulshada ka farxiya iyo caalamkaba. guusha wiilkan da'da yarna waxa ka dambaysa hooyadii oo ilaa markii uu 3 jir ahaa la garab taagneed taageero iyo barid.